shacabweynaha ku dhaqan magaalada Buuhood ee xarunta gobolka Cayn ayaa taageero lixaad leh u fidiyay madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed inuu mar labaad ku guuleysto jagada madaxtinimada dalka Soomaaliya iyagoona shacabweynahan ku dhaqan magaalada Buuhood ee telefishinka caalamiga Universal u soo bandhigay dareenkooda ku aadan taageerada lixaad kale oo hayaan madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed shacabka oo arintaas ka hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa gobolka Cayn waxaan halkan u fadhinaa caawa oo ka hadlaynaa barnaamijka ansixinta dastuurka iyo madaxweynaha Sheekh Shariif musharaxnimadiisa cusub hadda uu soo banaan baxay waxaan leenahay dastuurka waa mabaadi la ansixiyay una dhiman tahay qabyo qoraal badan oo lagu ansixinayo xildhibaanada inoo soo socday aynu dooranay ismadeena iyo waxgaradkeena deegaanka dalku doortay waxaan inoo hadhay hawl badan oo codeynta dadweynaha shacabka Soomaaliya ay codeyn doonaan marka horta wax mushkilo oo dastuurka habeelaha ku jiro ma jiro waana ka baxnay waa maanta waa u dhashay waa roob ugu dhashay ama roob naxariis roob Soomaaliya u daaday waxaan taaganahay madaxweyne Sheekh Shariif waa nin xogaal ah u soo halgamay dalka Soomaaliyeed u soo miradhaliyay maanta dastuur in lagu ansixiyo dalka Soomaaliya shirweynihii dabadaha lagu qaban jirayna maanta lagu qabtay dalka gudihiisa waxaan leenahay ha jiro ha joogo waanu ku taageersanahay horumarku gaadhay iyo maanta Soomaaliya meeshu salkeeda cagiha u taagay dibadda u taagay madaxweynaha sidoo aragta ansixinta dastuurka roormanka aad baan ugu faraxsanahay madaxweyne Sheekh Shariif soo baxo doorashada dambe aad baan ugu faraxsanahay aad baan soo dhaweynayaa waa soo dhaweynayaa ansixinta dastuurka qabyo qoraalka Soomaaliyeed loo imka dhawaan la ansixiyay waxaan kala taageersanahay madaxweyne Sheekh Shariif in uu mar labaad soo sharaxo maadaama uu aan u arko inuu qofka kaliya ee hawsha si toos ah u sii wadi karo yahay wabillahi bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan caawa halkan fadhinaa laba arrimood oo ah mid tahay koowaad ansixinta dastuurka qabyo qoraalka aad iyo aad baan u taageersanahay in loo ansixiyo ummadda Soomaaliyeed dastuur ay leedahay oo iyadu iska leedahay qodobka labaad aan halkan fadhinaa wuxuu yahay waxaanu taageersanahay oo ayideynaa musharaxnimada mar labaad u sharaxan yahay xilka madaxnimada Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed Sheekh Maxamuud aad iyo aad baan u taageersanahay waxaanu jecelahay in mar labaad la doorto maadaama uu yahay ninka kaliya ee ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ay ku jirtay muddada dheer ka saari kara waxa weeyaan wuxuu qaban kara haddana wax qabad badan muujiyay insha Allah haddana ilaahay uga rajaynaynaa inuu soo baxo isagana waxaanu kula dardaarmaynaa inuu daacadnimo iyo karti iyo hufnaan oo ku dhaqo ummadda Soomaaliyeed shacabweynahan iyagu dareenkooda ku muujinayay taageerada lixaad kale oo hayaan madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa wajigooda waxa ay ku dheenayd farxad iyagoo isla markaasna TV-ga caalamiga Universal TV u soo bandhigay kelmadaha ay ku taageerayaan madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed dhinaca kale waxaa maanta magaalada Buuhood ee xarunta gobolka Cayn ka diyaar garoobay wafti ballaaran oo isugu jirta isimo cuqaal culamaa oo diin waxgarad iyo waliba guurti kale oo iyagu u kicitimaya magaalada Baladhig halkaas oo ay taalo gogasha wada hadalka beesha bariga Burco iyo beelaha Buuhood lagu nabadaynayo waftidan ayaa iyadu ahayd tii ugu ballaadhneed ee abid ka diyaar garowda deegaanka Buuhood ee xarunta gobolka Cayn iyadoo muddooyinkii la soo dhaafayna dagaal qadhaadh ay ku dhexmareen beelahaasi duleedka deegaanka Buuhood kala shaale meegagle iyo waliba hagoogane waxayna waftidan ballaadhan ee isugu jiray ismada iyo cuqaasha culamaa diinka iyo waxgaradka iyagu ay ahaan doonaan wafti iyagu u gogol xaadha wada hadalka beesha bariga Burco iyo waliba beelaha Buuhood waftidan ballaadhan ee isugu jirtay ismada cuqaasha culamaa diinka iyo waxgaradka Cabdi Xiis telefishinka caalamiga Universal TV Buuhood